midda labaad waxay tahay canshuur qarin. tusaale waxaa gaari la soo saaray 1000 kiish oo shamiito ah waxaase la canshuuraa 700 oo keliya iyadoo waraaqadaha lasoo kala qarinayo. bismillaah mas'alada su'aashu waxa weeyaan si guud ka dhigno canshuuray dawladdu qaadaan canshuurtii dawladda si looga dhuunto baa wixii dhabta ah lama sheegaya tira ka yar baa la sheegaya hay'adda canshuuraha ama xuduud ha noqoto ama takada ha noqoto ama airport ha noqoto meesha hay'adda canshuuraha iyo customku ay joogaan dukumenti baa la gudbiyaa ee gaari kasta iyo gaadiid kasta oo raran iyagu ma tirin karaan gaari ay 1000 kiish saaran tahay ba waraaqaha waxaa lagu soo qorayaa 500 300 700 baa saaran 700 bay canshuurayaan meeshana 1000 baa saaran 300 bayna canshuurin maxaa tirada loo bedelay canshuur ka carar waay waxa fiiray su'aashu sidaas way marka su'aasha nuxurkeedu wuxuu noqonayaa ama tiraha laga hadlo ama qiimiga price lacageed ha laga hadlo canshuurta in laga cararo oo laga dhuunto ma banaanta waxaan su'aasha halkeeda muhiimadeedu halka way waxaan dhihi karaa canshuuruhu waa eray hadda maanta macna guud loo isticmaalo waxaa soo gala qaybtii maksiga shariicadu ay u taqaanay iyo qayb shariicadu ay u taqaano ijaar ay boodbad ka soo dejinaysa alaab gaadiid baa la isticmaalayaa bakhaara la isticmaalayaa shaqaala la isticmaalayaa electricity baa la isticmaalayaa kharash baa ku baxaya kharashka ku baxaya baabul ijaara way inta ka badan baa haddana percentage baa la saaraya alaabta soo gashay wixii taana waa canshuurihii maksiga aan xaraan tahay shariicadu u taqaanay labadaas oo isku jira baa hadda custom iyo ama canshuuro iyo la isku yiraahdaa sadarta curfiga takad bad ka soo dejinaysa alaab doomaa soo qaadaya weeshash baa qaadaya takadii alaab bay ku xiranaysaa gaadiid baa maraya jidadka iyo waxan waa la dhisay shaqaaliya xafiisya ka shaqeynaya oo wixii fududeynaya wixii oo dhan canshuur baa la isku yiri haddana qayb ka mid ah waa ijaardii gaadiidkan aad isticmaashay iyo dadkan aad isticmaashay iyo xafiisyadan aad isticmaashay iyo dhulkan aad isticmaashay iyo wiishashkan aad isticmaalaysaay bilaash maaha waa baabul ijaara qaybtaas qayb kaloo canshuuroo baabul maksi ana waa lagu daraa sidaas darteed intaa waxaan rabaa inaan idhaahdo waxyaabaha hadda canshuuraha loo yaqaano wax wada dulmi iyo xaaraana ma wada aha ee qaybna waa xaq qaybna waa dulmi haddii la kala saari karo qaybta xaqa in laga cararo ma banaana qaybta dulmigaana in laga cararo laga dhunto xataa laaluush haddii lagu bixinayo way banaantahay haddii la kala garan waayay duuduub tahay qofku waxaa duuduubanayn la kala aqoonin qadarkii qiyaasu is yiraahdo intaa wixii lagu sameeyay ijaar ahaan wixii loo yeelan lahaa way ku filan tahay wixii ka badan uu ka carari karaa ama tiraha yareeyo ama qiimaha hoos u dhigo ama qof meesha jooga soo xaqiisi u kala badbaadsada qayb ha siiyo qaacida fuqaadana waxay tahay markan oo kaleeto al-ithmu ala al-akhidhi la ala al-mu'ti qofka bixinaya laguma la dambi ma laha waa qof xoolihiisina laga haysto xoolaha us xaq loogu lahayna la saarayo inuu qayb ka kala dhuunto xataa shaahu ku bixiya dhibaato ma laha laakiin dambiga qofka qaadanaya iskale wabillahi tawfiiq